السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خيرته مeel walba daafaha dunida ka joogtaan kusoo dhawaada barnaamijka falcelinta faallooyinka Facebook oo toddobaad walba aad ka daawataan YouTube channelkayga. haddii aadan horay subscribe u oran imika ku qabo. maanta barnaamijkeena falcelinta Facebook alla ilahe qosol waa la rafan doontaa. waxaan idii hayaa waa barta laga adeegto mareegta laga adeegto la yiraahdo Sami Online oo xarunteedu weyn ku taalo magaalada Hargeysa ayaa waxay bogooda Facebook ee Sami Online soo dhigeen cunto loogu talagalay bisadaha ama yaanyuuraha. waxaan u qorneen sida tan idin muuqata. waxay yiraahdeen haddii ay hilib iyo kalluun bisadaadu yaanyuurtaadu ka caajistay u iibi cuntadan cajiibka ah ee Whiskas oo qiimaheedu yahay $8 oo qiimaheedu yahay $8 ka iibso halkan. markii halkaas xaajadu marayso waxaa isweydiin mudan qoladii iyagu ciidanka faallooyinka kommentiyada Facebook aha maxay ka dhiibteen iyadoo Soomaalidana lagu xanto dad aan naxariis u haynin dab joogta la nool sida ayda iyo bisadaha. balanu eegno faallada ugu horeysa. haye waa Aaj Cusmaan Saalax. qofkaas wuxuu leeyahay saaxiibow haddii aan kaa gato yaanyuurtana ay cuni weydo dadka ma cuni karaan. ninka wuxuu ka fikirayaa $8. wuxuu yidhi haddii aan kaa gato oo yaanyuurteeda cuni weydo dadku ma cuni karaan. macnaha baashan haddaan la kaco oon gato oon guriga geeyo oo yaanyuurtii ka heli weyso $8 oo qiimaheedu fadhiyaa. $8na sida lagu helo Soomaaliya ma sahlanee waariyaahe waar dadku ma cuni karaa oo nafaqa ma laga helayaa. kolley dee Sami Online baa ka jawaabi doonta cunto bisad loogu talagalay haddii dadku cunaan tolo maxaa dhici doona yaa ogtay yaanu garan maayo kol ama shubun ku dhacaa nasiibkiisa. commentiga labaad waxaa bixisay gabar la yiraahdo Lisa bintu Awl. Lisa waxay leedahay $8 maan suuligayga shaambo ugu soo iibiyo bisad adduunkan ugu nabcahay inay soo agmarto waa baabsi. bay maane suuliga shaambada loo iibinayo ani ma fahmin. dadka qaarkood suuli ma yaqaanayaan musqusha laga wadaa laakiin suuli oo shaambo loo iibinayo nolosheeda ma arkin ma fahmin waxa ula jeedin. macnaha musqusha ma wasakh ka ah oo bleachkii wixii lagu shubaya ula jeedaa ma fahmin. idinka ma fahanteen qaybta commentiga bal gabadhan waxay ula jeedo idinka idin daay. haye commentiga xiga waa Nursaki wuxuu leeyahay saaxiib yaalow yar ayaa hooyadood ka dhimatee. iyadu waa jeclaa aad iyo aad u jeclaanayaan waa ka xumaa ayay ka dhimatee ma heli karaa cuntada eeyaha yaryarka ah. dabcan waa shakhsi naxariis badan. Nursaki wuxuu leeyahay aydan yarka hooyadood ayaa ka dhimatay cuntada ma heli karaa ayda. dabcan ayadana way jirtaa waa la iibiyaa Sami Online inay keeni doontaan rajaynaynaa. aydaasna Nursaki oo xanaanee haddii aad garab u baahan tahayna dabcan haddaa barnaamijkan daawatid ama qof yaqaana maadaama oo magaca uu kusoo galo Facebook noo muuqdo fadlan lagu soo xiriiriyo inaan ka qayb qaato caawimaadooda diyaar ayaan u ahay. mahadsanid. qofkan wuxuu kusoo galaa hooyo jacayl wanaagsan. waxay leedahay alle dadkii waxay cunaan ayay laayihiin idinkana bisad ayaad ka hadlaysaan inaan waxoogeen Allah cadaabin. oo Soomaalidu kuwii landheerayaasha ahaa oo balad ahaa oo awoogood haafka geela cuni jiray soo kuwa qolo walba calanka ay samaysteen ay yiraahdeen anagu waxaan nahay wadan xora anagu waxaan nahay reer hebel oo boqortooyaan nahay soo kuwa leh waa maxay dadku waxay cunaan la bisinka haya dunida kale inaan u gurbanaa bal rabay landheerayaa baanu nahay naga daa ciyaarta de naga daa ciyaarta ka soo waa Suhayb Cabdiraxmaan. wuxuu leeyahay qofkani Sami Online si uu wax dadka uga iibiyo ayuu garan lahayaa. bisad kalluun iyo hilib ku caajistay waxay la mid tahay Somaliland oo ka caajistay gooni u istaageeda.
والله بالله سايب وإيجو قصيزي يا والله عجائب هي كفتي حقيقة هبو حوالة دعالة وحيلا ده يدنا walaal balaqyo ayay subaxii aroortii doontaan habeenkiina dooli ama baraanbaro wixii ay hesho ayay cuntaa qasheey laa ilaaha ila allah muxamad rasuulullah baraanbaray cuntaaya laa ilaaha xanuun waayo tan naxariis ma laho yaaqi hibo see camal bismillah wax kaloo qorto ma weyse iga tag dheh imooti kommentiyada ila horleh waa cureeji muxiidiin waxay leedahay hadda hilibka ka caajiste dooli ayaanu hayaa haddii hilibka ka caajisto dooli ama jiir baanu hayaa bay leedahay waa qoftaa $8 lagama qaadi kari taagantay habarteed bay ka tahay yaa ku xiga waa maxaa qor carabiga sidii loo akhriyo waaba iloobay qofka maxaa meesha ugu qoran soo fiiriye samati lafati miya war ma aqaan wallah samati lafati hadduu caaligu uusan shaqa lahayn buu ma akhrin aqaanano okay samati lafati waa ma aqaan dadkan waa xaaraan bay ka tahay inaan la akhrin karin war idinku bal soo qoro qolyihiina carabiga yaqaano qofkaas wuxuu ula jeedo bal magacaas haye inantaas waxay leedahay walaalow bisad ma haysanee cuntada riyaha noogu roonow kuwaasa noogu daran waxay leedahay bisadii xaaladeeda inta iga deysid ridan yarta ee cadeyska aan ka maasho cuntadeedii hala soo dejiye same online hala keeno ayay leedahay waa mahadsantahay hoono haye meeshaan waa saf 4 qofood aad iyo aad u kala duwan ikraan axmed waxay leedahay walaalow aniga ii tilmaama sunta bisadaha naftii bay igu dhibeen guriga bay iga qormiyeen walaalahay marka hore qalbigaaga ilaahay naxariis ku beero bisad masaakiina inaad dishid oo nafti ka goysid ilaahayna raalli kama aha ummadiisuna raalli kama aha haddii ay ku dhibayso bisadu iska fogay walaal macaan haddilin waa noole halka aan ku noolahay oo ingiriiska ah bisadaha waa la xanaanaystaa dowladdaaba lacag gaara siisa soomaalida landheerayaasha anugu sababta bisadaha u dilayaan waa la yaabanahay hani hayba idin wuxuu leedahay soomaali maxamed troubleka iska daaya bisadaha la gaara alaabtan ajar iyo xasanaad baad ka helaysaan aad iyo aad oo mahadsan tahay yani suweyde macalin waxay leedahay bisada online-ka wuxuga iibi miyay maraysaa waa sheeko kale aad iyo aad bisada online ba wax looga iibsadaa iyaasha online wax looga iibiyaa dad baa masas guryaha ku haysto online masaska cuntadooda uga iibiya de waa maxay dee bismillah dadkii laandheerayaasha waa u hadlaya hayaa warniyo naga daaya baash sigad kun kaafi wuxuu leeyahay xoolihii aan dhaqanaynay ayaanba biyo iyo baad u laanahay markaas miyaa $8 bisad cuntadeed ka baxshaa anuu ku soo celiyay ciddaan laandheeranimo ku faanta Soomaalida la yiraahdo xoolihii bay ceel u qodan laayihiin dadkii baa cunto la'aan ay leeyihiin bay yihiin anuu ma garan laandheernimadii iyo wadankii la kala xirxirayay in reeb kursiga ku fudin taageeri maayo lagu hay iyo dadka saamula calaalaya garan maayo warigi hore leexo komitigood haye axmed haybe wuxuu leeyahay ma cuntaa mise waa sun waar lacagta iska khasaarinina cid bisad wax u iibin mayse anigu waan u iibin lahaa axmedo wallahi bilaa waan u iibin lahaa ayna waan soo lahaan jiray waagan Soomaaliya joogan yaraa ya eygana waan soo qaraabi jiray marka dad iibinaya jira hadii adigu waa bakhayl tahay oo baasha ku dhigan tahay koode ajirna waa laga helay waa har u iibi bisadaada wax xamse xaaji xabiib ombel wuxuu leeyahay sunta bisadaha lagu diliyay ayaan moodayay ma cunto la siinayo ayaad keenteen hadday sidani ku sii socoto birina waxaynu arki doonaa xabaashaada sii iibso adoo nool waa la sii iibsadaa xabaashaada iyo kafantaada dad baa kafantooda soo iibsada guriga dhigta yaa maalinka jimcaha kale eega dee waa arrin geesinimo u baahan qabriga iyo kafanta labadaba waa la sii iibsadaa akhiir waxaan rajaynayaa inaad barnaamijka aad iyo aad uga heshaan falcelinta faallooyinka Facebook oo aynu kusoo gudbino sida aragtida dadku ay u kala duwan tahay iyo meelaha ay wax ka kala eegaan haddaba
haddii aad jeceshahay barnaamijka inaad mar walba daawatid oo ku xirnaatid fadlan subscribe dhe ha iloobinka mulaanka ilaad jag siiso waa fuad qabyaaladii barnaamijka idiin daadihinayay idiin farsameynayay tan iyo barnaamijka mid lamid intaynu ku kulmi doono waxaan idin leeyahay dugsi mala qabyaaladii waxay dumisa mooyaane meel walba joogtaan waad mahadsantihiin guuleysta